Asalaamu calaykum. Waa cashiradeenii imtixaanaha ahaa tiyoriga ku saabsanaa ama shuruucda iyo qawaaniinta wadada iyo calaamadahooda insha Allah. Muuqaaladii hore casharadii hore waxaan kusoo qaadanay qaladaadka ama xadgudubyada darajada heerka koowaad, darajada labaad, darajada saddexaad iyo kii afraadba. Waxaa inooga harsanaa halka xadgudubyada ku saabsan xawaaraha ama khaladaadka ku saabsan xawaaraha. Xawaaraha waxay ka mid yihiin ayagana qaladaadka ama xadgudubyada oo loo yaqaano zwara overtraining ama qaladaadka aad u waaweyn ama culusba oo loo yaqaano strafpunter oo haddii su'aal theory ku saabsan ama su'aal ku saabsan shuruucda wadada oo hal su'aal ku saabsan xawaaraha aad qalado ay ka dhigan tahay inaad 5 su'aalo qaladay. Sida waxaa la midka ah xadgudubyada darajada heerka labaad, heerka saddexaad, heerka afraad iyo xawaarahaba. Intooda waxay ka mid yihiin su'aalaha loo yaqaano zwara overtraining ama strafpunter. zwara overtraining waxaa laga wadaa khaladaadka culus. Strafpunter waxaa la lahaa waa buddooyinka ciqaabta oo haddii hal su'aalo theory ama hal su'aalo sharci aad qalado ay ka dhigan tahay inaad 5 su'aalo qaladay oo kale. Snellheit overtraining. Haddaan bilowno insha Allah. Snellheit overtraining. Khaladaadka ama xadgudubyada xawaaraha. Binnenbosch.com magaalada gudaheeda ama meesha dhisan gudaheeda. Sidoo kale zone 30 iyo aaga 30 lagu socdo. Sidoo kale school omgeven aagaga schoolka of ama one erf meelaha loo yaqaano one erf. Tusaalooyinkooda insha Allah haddaan qaadano midka ugu horeeya one erf waxaa loo yaqaanaa boorkani bluega ah waa xaafad yar oo kooban waxaa loo yaqaanaa one erf xawaaraheeda ugu badnaan waxaa laga yaabaa inaad ku socoto aadan ka badinin 20 kilomitir saacadii. Haddii aad ka badiso waxay ka dhigan tahay inaad geysatay xadgudub xagga xawaaraha ah insha Allah ayna tahay zwara overtraining halkii su'aal 5 ayaa qaladay. Kan xiga binnenbosch.com magaalada dhisan meesha dhisan magaalada ama meesha dhisan ama magaaladaba haddii aad soo gasho xawaaraheeda iyadana waxa waaye 50 kilomitir saacadii. Haddii aad ka badiso adoo jooga magaalada gudaheeda 60 65 70 waxay ka dhigan tahay inaad khalad gashay oo ah khaladaadka culus insha Allah. Midka xiga waa laba boorood midna wuxuu dhahayaa Schoolstraat midna Speelstraat. Schoolstraat waxaa la lahaa wadada iskuulka. Speelstraat waxaa la lahaa wada yar ama xaafad ah oo loogu talagalay waqti kooban in loo xiro waa ilmaha degan meeshaas ama carruurta degan meeshaas ay ku ciyaaraan ayaa loo yaqaanaa. Labadooda marka waxay ka siman yihiin insha Allah waxaa loo yaqaanaa stop foods. Stop foods macnaheedu waxa waaye talaabada qofka bini'aadamka uu qaado. waxaa laga rabaa baabuurta marka wadadan way geli karaan bishardi haddii waxa shuruudaha loo tagalay buuxiyaan. Laakiin haddii shuruudaha ay buuxiyaan hataa waxaa laga rabaa inay ku socdaan stop foods oo ah sida qofka bini'aadamka oo talaabada u qaadi lahaa oo kale inuu u socdo oo macna la ah 15 kilomitir saacadii. Xawaaraha gaariga inuusan ka badan 15 kilomitir saacadii. Schoolstraatka waxaa laga rabaa marka makhye alleen rijden kaliya waxaad ku wadi kartaa Schoolstraatka alashye haddii adiga in speciale vergunning hebt haddaa haysato sharci oo gaar ah oo loogu talagalay inaad geli karto meeshaasi. Speciale vergunning waa sharci ama aqoonsi gooni ah oo loogu talagalay inaad gali karto Schoolstraatka ama wadada iskuulka. Kan xiga oo Speelstraatka ah oo wadada loogu talagalay carruurta inay ku ciyaaraan
makhi asigana waxaa lagu ogol yahay air lane keliya raacin inaad ku wado gaariga alashiyee haddii adiga air want aa meesha degan tahay off ama in kharaasha hebt oo ama garage meesha kugu yaalo garageka gaariga aad gelin lahayd kala meesha kugu yaalo marka keliya ayaad ku socon kartaa bishardi waa inaad xawaaraha uusan ka badan 15 kilomitir oo macno la ah stop foods labadaba waxay ka sameeyeen yihiin stop foods ama 15 insha Allah taala midka u dambeeyo oo nagu xiga insha Allah waxaa loo yaqaanaa boorarkani zondertig ama aaga soddonka lagu socdo asoo keliya oo zondertig ay ku qoran tahay ama asoo lagu daray boorka caruurta oo ku dhahay iska jir halkani caruur baa ku ciyaari karta mise mari kartaba sigane waxaa loogu talagalay inaan soddonkaas aadan ka badinin haddaan fiirino marka ganaaxyada iyo caqabadaha aad la kulmi karto ugu horeyn on middle-ga inning haddii aad xawaarahaada badiso waxay ka dhigan tahay si degdege lagugu qabto in lagaa qaado isla markaasi lacag haddii xawaaradu gaaro 13 kilometer yacni aaggii loogu talagalay soddonka waxaad ku kordhisay 10 kale 40 ku socotay waxay ka dhigan tahay marka ilaa iyo 10 kilometer ku kordhisay waxay ka dhigan tahay marka 53 euro degdeg in lagaaga qaado okay plus 10 kilometer lagu daray ama ka badanbo 10 kilometer ama 10 kilometer 53dii ayaa lagu kordhinayaa 12 euro calaa kilometerkii يعني 10 kilometer wixii ka badan haddii 15 kilometer aad ka dhigtay xawaarahaada 10 wixii ka badan calaa kilometer waxaad bixinaysaa 12 euro maxaa kaloo ku xigo geld boete waxaa kusii dheer ganax lacageed oo ka bilaaban karo 80 euro ilaa 4 gaarayo waxaa kaloo sii dheer on middle-ga intrekin si degdega in lagala noqdo vanhedrivice laysanka haddii xawaarahaada uu ka badan yahay 20 kilometer matalan aaga kontonka ahaa ama aaga soddonka ahaa waxaa ku kordhisay 20 ka badan meesha konton loogu talagalay waxaa geysay 75 iyo wax la mid ah waxaa lagaa ceshan karaa si degdega weliba laysanka waxaa kaloo sii dheer kan de rechter het verval van het recht tot sturen uitspreken xaakimka ama maxkamaddana waxay ku dhawaaqi kartaa inay kala noqdaan ruqsadii inaad wax wadi karto ama xaqii ama xuquuqdii aan u lahayd inaad wax wadi karto gaari yaa macnaha laga yaabaa in macnaha lagu dhawaaqo xaakimka ama maxkamadda waxay ku dhawaaqi kartaa inay kaa ridaan xaqi aad u lahayd inaad wax wado gaari mukhlig yacni macquulgal waxaa ah haddii xawaarahaada laga bilaabo 20 kilomitir ka badan uu ahaado yacni xaakimka wuxuu ku dhawaaqi karaa in yani xuquuqdaadii lagaa celiyo verplicht waxaa qasab ah marka haddii xawaaraha aad ku kordhisay 30 iyo ka badan ay tahay waxaa qasab ah in maxkamadda ayba ku saarto yani inaadan gaari wadi karin ama xaqii lagaa ceshto aad wax ku wadi lahayd insha Allah tacaala waxaa uu ka egyahay cashirkeena maanta ama muuqaalkeena maanta intaas ku egyahay waxaan filayaa in laba qayb oo kaleete ay nooga harsan tahay waxaan rajeynayaa in laga faa'iidi doono haddii Ilaahay idmo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu